si caafimaadka indhaha awood u yeesho waxa laga yaabaa inaad maskaxda ku haysid daawooyin noocyo aan u isticmaali karaa oo caafimaadka indhaha mise fitamiinaadka indhaha mise nafaqada indhaha kor u qaadi karo. waxaa jira 3 nooc. nooca koowaad waxay tahay nooc leh omega waliba omega 3. noocan waxa aad u anfacaysa dadka leh indha qaleelka oo kale. nooca labaadna waxay tahay nooc leh fitamiinaadka sida A, B, C, E, zinc. fitamiinaadkaas oo dhan leedahay waxay u wanaagsan tahay dadka gabowga ah ama shabakada dambe indhahooda cudurro leh ama aad ugu nugul oo kale aragga daciifid oo kale. dadkaana waa loo qoraa noocana loo qoraa. nooca saddexaad waxay tahay oo u wanaagsan caafimaadka indhaha oo qof walbana u isticmaali karo ayadoo leh fitamiinaadka hadda aan soo sheegay. waxaa u sii dheer omega. noocaana waxaa isticmaali karo qof walba oo qofka maalinta wuxuu ka qaadan karaa 1 xabo, laakiin qofka nafaqada